Khan Baba wuxuu ka soo jeedaa dalka Pakistan. Waa 24 sano jir. Miisaankiisu waa 440 kiilogaraam. Halkii mar wuxuu cunaa 2 kiilo oo hilib ah, bariis, rooti, khudaar iyo 1 litir oo caano ah. Khan Baba ayaa doonaya inuu miisaankiisa gaarsiiyo 500 oo kiilogaraam. Waxaan awood u leeyahay inaan cagaf-cagafta hal gacan ku qaado. Maalintii 3 saacadood ayaan jimicsi sameeyaa. Khan Baba ayaa ka soo jeeda qoys ladan. Wuxuu aad u jecel yahay daawashada musaaracada iyo inuu qaado waxyaabaha aadka u culus. Sidaad u jeedaan, wuxuu ku tababaranayaa qaar ka mid ah asxaabtiisa oo hal gacan ku qaadayo. Dadku waa ila yaabaan markay ay arkaan. Maalin ayaa waxaa dhacday inuu jabay kursi aan ku fadhiisan rabay. Waxaan dareemay ciriiri. Hase ahaatee waalidkay mowqifkaas iyo arrintaasi way soo dhoweeyeen. Khan Baba wuxuu dhib ku qabaa socodka iyo inaan la helin dhar le'eg sababtoo ah waa nin aad u buuran. Halka dadka qaar ay leeyihiin Khan Baba waa xanuunsan yahay oo kama qaybgeli karo tartanka musaaracada maxaa yeelay waa nin miisaankiisu uu aad u culus yahay. Hase ahaatee Khan Baba arrinkaas gaashaanka ayuu u duruuray, wuxuuna sheegay inuu caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay. Khan Baba ma ahan wax khiyaali ah, ma ahan sawir gacmeed, waa nin qof caadi ah ama oo bini'aadan ah. Waxaan ku faraxsanahay miisaankayga iyo awooddayda. Sidaas waxaa yidhi Khan Baba.